بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكتن دمانتين بسود دواد ميلور باتوني دكا جوكتا هتكون سود دواتان وراركي قدن بيه عالم كغارهان حالك قبل كبريق دحي أوليسي حمانية نتنياهو يو دونالد ترامب وغورد ودا هادلاي وحيك ودا هادلانا يو نبرامبس وكوسو قادن دون هدي لكا ديغو دولد ودن كباكستان ودرباحة أدكو دفتاي مريكا كمامل كمستها إسرائيل دولد ودن كتركي وهنجبه سايطلو محي قبان كتا برامشكا أيام كوسو قادن دون هدي لكا ديغو دقال فرح لوغو قبتي أيا كسعونا يو koonfurta wadanka Lebanon Israa'iil iyo xogaga reer Lebanon ee gobonimo doonka ay u dhaxaya dawladda wadanka Iran wacd ay ku martay wada hadalku inaanu tagi doonin markaas ay wadanka Pakistan hadii aanay dagaalkaasi wadanka Lebanon la joojin dawladda wadanka Mareykanku si weyn u yaaban madaxweyne Donald Trump waxa bad joojinta si weyn uga faraxsan laakiin dhibaato kale ayaa odayga hoostaala wararkii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa hadii la ka dhigo qodobadaasi qodobo kale oo aad u xiiso badan dalalka Ruushka iyo Shiinaha iyaguna Israa'iil si kulul u canaananaya dawladda wadanka Jarmalka oo heshiis oo la galayso dawladda wadanka Iran qodobadaasi qodobo kale oo aad u xasaasi ah ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa saaxiibadayo aad wada mahadsantiin soo dhawaada hadii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqato fadlan kanaalka subscribe si loo wadaag saaxiibadaada muuqaalka aragtidaada ka dhibi hadii aad saaxiibadeeda hore ka mid tahay aad wada mahadsantahay mar walba guulayso saaxiib hagaag aan ku hormarnay markuu ugu horeysay waxaad moodaa heshiiskii xabad joojinta ahayd ee dawladda wadanka Iran iyo Mareykanku ay galeen ayaanad wax moodaysaa inuusan cagab badan ku taaganeyn maxaa yeelay wadanka Lebanon waxa ka soconaya duqeymo culus oo ay geysanayaan maamulka gumeystaha Israa'iil ayaa ka soconaya dhinaca kalena xoogaga reer Lebanon ee gobonimo doonka ayaa iyaguna goordhow waxay sheegeen inay gacanta isla tageen ciidan ka tirsan xoogaga gumeystuhu markaas isku dayay in furmahooda ka soo dhaqaaqaan dagaal aan la isu naxariisanayn oo dhinaca dhulka iyo duqeymo waaliya ayaa ka socda dhinaca wadanka Lebanon inkastoo tan iyo saaka xogaga reer Lebanon iyaguna duqeymo dhowr ay qaadeen duqeymaha dhinaca cirka marka la eegayo waxaad moodaa maamulka gumeystuhu si arxan dar ah in markaas u burburinayaan magaalooyinka iyo tuulooyinka guud ahaanba wadanka Lebanon markii hore waxa la duqeyn jiray koonfurta Lebanon laakiin hadda bariga iyo galbeed koonfurta iyo waqooyiga mid lama daayo waxaad moodaysaa xasidnimo inteeda la eg in lagu hayo shacabka reer Lebanon dhinaca kale waxa si lagu warinayaa dawladda wadanka Lebanon xoogaga gumeystaha iraahdee Benjamin Netanyahu oo goordhow warbixin soo saaran waxa uu sheegay in dawladda wadanka Lebanon ay doonayaan inay si toos ah isu wada horfariistaan ugu dambeyntina shuruuddu waxay tahay buur in Xisbullah ay markaas hubka markaas ay ka dhigaan hadii aan hubka laga dhigin buu yiri xoogaga Xisbullah Lebanon nabad ma ku harsan doonaan ayuu yiri sababta Israa'iil ay u doonayso in hubka laga dhigo xoogaga reer Lebanon maba la awoodo in laga dhigo waxay tahay inta badan waxay rabtaa in guud ahaanba wadanka Lebanon ay gacanta ku Lebanon dabcan xukuumad waxa ka dhisan kaliidata kuwa Soomaalida maanta u dhisan iyo kuwa ka sii liita waxa la wariyay xukuumadaha dunida ugu liita tan ugu sii liidata inay ka dhisantay wadanka Ukraine wadanka la yiraahdo Lebanon madaxweynaha wadanka Lebanon oo la yiraahdo Joseph Aoun la yiraahdo inkastoo uu yahay nin Kirishtaan ah haddana inta badan maalimihii shacabka reer Lebanon la gumaadayo isagoo waa faraxsan yahay gantaalka heesta Israa'iil ku dhaca ayuu aad u la xanuunsanaya waana madaxweynihii wadanka Lebanon sidaas daraadeed marka dagaalku waxna ma galo nabad iyo colaad midna ma keeni karo marka laakiin Israa'iil waxay leedahay hadii aad rabto in xabad idinka joojino waa inaad xogaga gobonimo doonka ah ee reer Lebanon waa inaad hubka ka qaataan marka raggaasna iska daa inay markaas dawladda wadanka Lebanon dawlad ku sheeg Lebanon hubka ka qaadeen waa mid jaajuus ah mid Masar ka dhisan waxba aan dhaamin weeye waxaan caalamul islaami hadda joogo dhamaantood ba jawaasiis ah wax u shaqeynaya Mareykanka maamulka gumeystaha Israa'iil balan idinku dhaarshiye 100 milyan oo muslimiina ayaa ku xareeraysan reer Falastiin haddana gaajo ayay u dhimanayaan waxaan u duqeymaha oo Lebanon iyo dadka masaakiinta loo geysanayaan dhamaantood markaas ish ayay ka daawanayaan dadka muslimiinta ee deegaanadaasi degan dhibaato kale ma qabaan laakiin kuwa horjoog ayaa jawaasiis ah waxa si aad moodaa goray ahaataba waqtigu si wanaagsan inuu u caawiyay xogaga maamulka gumeystaha kuwa reer galbeedka dawladda wadanka Mareykanka oo dacminaysa laakiin waxaan filayaa mar sidaas aan u sii fogeyn in markaas qarax weyn uu dhici doono isla markaana laga qomameyn doono Allah iyo wacanaan lahayda inaanu qabano maalimihii qabashada lahaayeen maamulka gumeystaha Israa'iil dhinaca kale Pakistan ayaanu aadaynaa ergeyga jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa gaar ahaan golaha amniga u fadhiya wadanka Pakistan ayaa sheegay wuxuu leeyahay heshiiskii aan keenay buu yiri oo Mareykanka iyo Iran lagu dhexdhexaadiyay Lebanon waa ku jirtay buu yiri ilaa iyo hadda waxaan la yaabanahay buu yiri goorta laga saaray wadanka Lebanon marka maba garanayo ayuu yiri sababta looga saaray heshiiskaasi xabad joojinta ah markii uu Trump dabcan heshiiskan iskama ogolaan dabcan Trump ayaa raali ka ah isaga ayaana Pakistan ku qasbay Iran wax allaale waxay rabtay in loo sameeyo ugu dambeyntii wax walbana ogolaanayso maxaa yeelay dawladda wadanka Mareykanka dhabar jab adag ayay kala kulantay inkastoo sarkaalka la yiraahdo Cooper ee maamulo waaxda ee markaas ay taliska dhexe dawladda wadanka Mareykanka oo isaguna gorow telefishinka Al Jazeera la hadlay uu sheegayo guul mucjisa inay ka gaareen dagaalkii markaas ay ku qaadeen dawladda wadanka Iran marka
laakiin ergiga marka wuxuu leeyahay garan waaya ayuu yiri marka wuxuu leeyahay hash maankayga gadaya ma masaar bay liqday wuxuu yiri heshiiskii aan Trump la saxiixinay oo labada dhinaaba ay ahayd guud ahaan colaadii in la joojiyo goortii Lebanon laga saaray ayaan anigu garan waaya ayuu yiri dhinaca kale waa shaka yaab leh ma ogtahay dhinaca kale ra'iisul wasaaraha aan iraahdo wasiirka arrimaha dibadda dawladda wadanka Iran mudane Abbas Araghchi ayaa sheegay in dawladda wadanka Iran ay tahay si degdeg ah markaas inay wax badan ugu fiirsan doonto in xabadda la joojiyo hubsan doonto maxaa yeelay suurtagal ma ayuu yiri in Lebanon ay xabadi ka socoto sidoo kale tana suurtagal ma ayuu yiri waxaan Israa'iil ay sameynayso in Lebanon ay ka sii socdaan waxa uu sheegay dawladda wadanka Mareykanka inay ku qasban tahay Israa'iil in xabadda joojiso hadii aanay taasay dhicin waxa sheegtay dawladda wadanka Iran waxa la isugu yimaadaa inay tahay shimbiriyahow heesa magaalada Islamabad la yiraahdo ee caasimadda wadanka Pakistan diyaar garow xoog leh ayaa ka soconaya waxaana la wirinaya maalinta Sabtida labada dhinac inay si weyn markaas halkaas kulan qaraar ku dhexmaro inkastoo uusan kulankaas toos ahayn dawladda wadanka Iran waxay shaki gelinaysaa kulankaas in ay tagi doonto in kale maxaa yeelay dawladdu waxay leedahay wali waxaan ku heshiinay wax aanan ahayn ayaa soconaya Lebanon qiimaha ka soconaya waxay ka dhigan tahay kuwa markaas Iran ka socda ayay ka dhigan tahay marka suurtagal ma noqon doonto adinka oo dagaalka naga wada in haddana xabad joojina afka nooga sheegtaan arintaasi marka warwar badan ayay dhalisay laakiin dawladda wadanka Pakistan si weyn ayay isu diyaarinaysa amniga magaalada la yiraahdo Islamabad ee caasimadda wadanka Pakistan si weyn ayaa markaas loo diyaariyay sida la leeyahay haddii dhinaca kale aan eegno madaxweynaha waanu imaan doona Ruushka iyo Shiinaha oo si kulul u hadlaya waanu imaan doona iyo sheekooyin kale oo barnaamijka ku jira laakiin markan madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxad moodaysaa sidoo ugu faraxay in xabad joojintii markaas dawladda wadanka Iran aqbashay wax alla yaab ah oo aad la yaabay bartiisa Facebook iyo True Social barta la yiraahdo ayuu ku daabacay daqiiqad batan ka dambeys wuxuu leeyahay heshiiska xabad joojinta ah Mareykanka waxa ka socdo buu leeyahay madaxweynaha ku xigeenka GD ninka la yiraahdo Stephen Witkoff iyo Jared Kushner ayaa soconaya dhinaca Iran waxa ka soo qayb galay wuxuu ku leeyahay markaas wasiirka arrimaha dibadda dawladda wadanka Iran afhayeenka yani waxa lagu leeyahay Donald Trump Iran ba heshiiska ogolaatay waxa ugu farxay balaalay si aan la arag marka laakiin sheekada aad iyo aad ay dhinaca kale uga adagtay laakiin telefishinka Al Jazeera qaybta Carabiga waxay warinaysaa goordhow in markaas madaxweyne Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha xoogaga gumeystaha ah ee duulaanka ah Benjamin Netanyahu oo telefoonka ku wada hadleen waxaana uu Donald Trump ka codsaday Netanyahu kullay haddaan ku iraado xabadda joojin meyside laakiin duqimaha culus ee Lebanon ku haysa hoos u dhig ama yaray ayuu ugu yaraantii si aanay u fashilmin buu yiri wada hadallada dawladda wadanka Iran inagayna ku jirno waxa uu sheegayaa in dawladda wadanka Mareykanka culays iyo niyad jab xoog leh ka darantay gudaha wadanka Mareykanka gaar ahaan xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump kala shaki weyn oo ku abuuray waliba warbaahinta ayaa si weyn ugu shactiraysanaysa madaxweyne Donald Trump iyo sida guul darada ah iyo weerarkii wadanka Iran ku qaaday inkastoo markii horeba gardaro ahaa haddana gardaradaas wixii ay dhashay ayay la amakaagsan yihiin xisbiga jamhuuriga ee dawladda wadanka Mareykanka hadda taladiisa maamulaya doorashada dhamaadka sanadkan dhici doontona waxa la gurinaya taariikh la yaab leh in ay wajihi doonaan xisbiga jamhuuriga ee uu Donald Trump hogaaminayo marka inkastoo wada hadalkaasi uu jiro laakiin haddana waxa la leeyahay hawshu aad iyo aad ayay u adag tahay oo Israa'iil wali duqeymo ayay wadaa duqeymahaba ma ahe goordhow sida ay warinayeen xoogaga reer Lebanon Hezbollah dagaal gacanta la isulo tagay ayaa dhacay waagaag marka waliba dagaal culus ayaa soconay dhinaca kale markaas aan eegno wadanka Yemen hogaamiyaha xoogaga reer Yemen Ansarullah Abdulmalik Badruddin Al-Houthi oo isaguna hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiska xabad joojinta ah ee dawladda wadanka Mareykanka ee maamulka Israa'iil ay gaareen waxa uu Abdulmalik sheegay arintan inay tahay wax si weyn looga farxo maxaa yeelay buu yiri guul aan nooceedo kale taariikhda la arag ayay soo hooyeen buu yiri ciidanka ilaalada kacaanka dawladda wadanka Iran iyo guud ahaan shacabka wadanka Iran iyo madaxdooda isku duuban Abdulmalik wuxuu yiri inkastoo ay ku duuleen buu yiri mid kamid ah ciidamadii dunida ugu xogga badnaa iyo tii labaad ay ku duuleen dawladda wadanka Iran dhan walba ayaa la isugu dayay buu in la weeraro lana tumo hase ahaatee waxa uu sheegay in arintaasi si weyn looga guuldareystay dhinaca kale gacanta dawladda wadanka Iran ayaa gaartay buu yiri meel walba oo dawladda wadanka Mareykanka ama buqcad walba ay ka joogtay gobolka bariga dhexe marka wuxuu leeyahay dawladda wadanka Iran waxay noqotay buu mid kamid ah shumaca ugu ifida badan ee wadamada muslimka u soo baxay arintan waxa la leeyahay طبعا خبر بدن أيانا قبا مجرت الدولة واحد لقولت دقاقي دولة ودن كيران لقولت دقاقي أو عالم كان كجرت أو تاجنان لهذا ليه حتى الدولة ودن كمريكان كمركب إيران وحكومة بعد مركز سد ليه هي حكومة ده واحد أحد دولة مؤسسات أو وصل حلقة في معمول مركز سلاسة دراسة مركز واحد ليه هي نظام يحبطن كدولة ودن كيران يقول السنتها واحد لقي يابا ودم بدن إن أي كود يدار معي يعني والدولة سلاسة يقول السن وبقلال تيرو إسكسه رجودها دنا إسكول لجر ويأتي كأنهم
bunyaano marsuusan sidii ilaahay ku tilmaamay oo kale ayay u dhisantay dowladda waddanka Iran marka Cabdimalik markuu wuxuu leeyahay arintana waa si wada doonaa xabad joojinta ay gaareen Mareykanka iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran si wanaagsan ayaan u tixgelin doonaa laakiin dhinaca kale wuxuu yiri duqeymaha waddanka Lebanon ka socda suurtagal ma aha mana daawan doono ayuu leeyahay marka waxay u muuqataa xoogag reer Yemen iyaguna dagaalku inay si eegi doonaan ilaa iyo 22 saac ama 24 saac ee soo socda hadii duqeymahan hadda ay socdaan ay sii socdaan waxay leeyihiin xuutigu dagaalku bartiis ayaan ka siimiisi doonaa maxaa yeelay markii horeba inagu cid walba oo walaalaha iyaga ayaan u gargaaranay marka hadii Iran xabadii ka joogsatay oo Lebanon ay ka socoto inaguna way nagu socotaa ayuu leeyahay dhinaca kale telefoon iyo diblomaasiyad aad u culus ayaa ka socota guud ahaan caalamka iyadoo waddanka Iran si weyn loo baranayo oo la leeyahay fadlan xabad joojinta ha ka bixin Israa'iil anaga ayaa qabanayna hawsh wanaagsan ayaa socota waana la qabanayay fadlan adiga xabad joojinta ha ka bixin ayaa la guranaya dawladda waddanka in lagu bariyayo dawladda waddanka Jarmalka ayaa iyaduna heshiis hoose la gashay dawladda waddanka Iran si maraakiibtada ugu soo gudbaan gacanka Hormuz la yiraahdo maxaa yeelay wadamadii ururka midowga Yurub dhibaato culus ayaa haysatay dhinaca shidaalka iyo gaaska marka waxaana dhinaca kale la guranaya iyadoo laftirkeeda xaaladda waddanka Jarmalka dhinaca shidaalka iyo gaaska inay tahay mid aad u leedahay sidaas daraadeed marka maadaama ay dawladda waddanka Jarmalka qudheedu Jarmalka iyo Faransiiska dawladda waddanka Iran iyo UK cadawtooyo gaar ayaa ka dhaxay maxaa yeelay cunaqabateeno tira dhaaf ah ayay ku soo rogeen ka hor dagaalkan marka dawladda waddanka Jarmalka marka waxay doonaysaa marka inay fududeyso cunaqabateyntii dawladda waddanka Iran ay markaas ku haysay gaar ahaan dhinaca shidaalka madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna go'aaminaya in la fududeeyo shidaalka dawladda waddanka Iran cunaqabateyntan laga dulqaado dhinaca kalena labada shidaal ee ugu badan waa Ruushka iyo dawladda waddanka Iran in cunaqabateynta shidaalka laga qaado si iyaguna markaas dunidu shidaal la'aanta ay ugu markaas maaranto waxaana la gurinaya arintaasi dhaqaale tiro badan inay ka heli doonaan wadamada Ruushka sidoo kale dawladda waddanka Iran ومركي يجوه رئيسي الله أركو مدحونا أمريكانه أو أولين يجود عن قبضتين تودن كإيران ولا قاعد دونا أو شكبكم مجر عيال الله يه مركب سيدا سدراد الدربابة مركب دقالك اللي قال الدولة ودن كإيران أبشر إبرواغ أيوها عيال الله يه وهذا شدال كذا يا أنت عن قبضتين تلقى قاعد مركب دولة ودن كجرمال كواحد سكوت ضيع سام شدالك أقوم بدنا دولة ودن كإيران إلا جي ودن كاسة ولي بقالات ترب بدنا مركز سوق جريام ولي بفرنسيس كجرمال كيوكي واحد سكوت ضيع إن ميل مريان وهذا يكسر لابتان هشيس كلا بكوشان إلا باتنك كاسو شيء dawladda waddanka Iran cunaqabateynta in laga qaado iyadoo markaas ay yareedo ay markaas kobcinta marka uraniumta alaayta xal marka cid walba darbiga ayay soo taabatay hadda dhinaca kale waxyaaba kale yaab kale waxa kamid ah dhammaan wasiiradii carabta dawladda waddanka Iran ayaa la wacay allo markaad guuleysata maxay cid walba ku jeceshahay mid walba waa wacay wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga kii qaadar kiin bahare wax allaale wixii carab ah way wacayeen waxay leeyihiin garabkiina taaganahay heshiiskaas diyaar ayaan u nahay wax calaacal iyo nacamlaya ka baxay ma malayn kartid marka Iran waxay noqotay libax aan la luuday karin sidaas daraadeed marka cid walba waxay doonaysaa in nabad ilaalinta iyo sidoo kale farxadda ay kala qayb qaadato wadamada Sacuudi Carabiya iyo isku tag Imaaraadka Carabta nimankan kale iyagu waxay baleeyihiin dib u dhiska wadanka dhan anaga qaadanayna ka warwar la'aado marka dawladda wadanka Iran waxaad moodaa sheeko cajiib iyo guul taariikhi ah oo cid gaartay Iran ka hor aan la arag in hadda markaasi ay gacanta ku dhigtay wal arki doona wararkan wixii ku soo koray dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda dawladda waddanka Ruushka ayaa si adag u weerartay maamulka gumaysto waxayna ku tirin waxan cadowtooye ah ee ka soconaya dhinaca iyo waddanka Lebanon marna lama qaadan doono Israa'iil waa inay si degdeg ah u joojisaa duqeymaha aan arxanka lahayn ee ka wada waddanka Lebanon arintan waxa ay halis ku tahay heshiiskii sida dirqiga lagu keenay mar labaad ayaad moodaa buu jir Israa'iil inay dab ku sii shidayso nabadii ay markaas muddo badan rafaad badan loo maray ma ogid wixii iyo dhibaatadii iyo soo jeedka iyo rafaadka laga gaaray nabadda hadda aad ku ciyaaraysay sidaas daraadeed waa inaad si degdeg ah u joojisaa dagaalka iyo colaadda iyo duqeymaha ka wado waddanka Lebanon waxa ay qayb ka tahay bay tiri dawladda waddanka Ruushka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda guud ahaan heshiiska la gaaray xabad joojinta ayay ku jirtay ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda dawladda waddanka Ruushka marka waxaad moodaysaa guud ahaan warbaahinta caalamiga markaad fiiriso Israa'iil waxay wajahaysaa mid kamid ah cadaadisyadii ugu xumaa oo dunida meel walba kaga imaanaya xataa wadamada reer galbeedka ayaa u careysan maxaa yeelay heshiis nabad joojina oo sida lagu garay alla og yahay ayay Israa'iil ku falaadaysaa marka waxa la leeyahay arintaas waa mid keentay in Netanyahu uu leeyahay wadahadal toos ah ayaan la galiyaa dawladda waddanka Lebanon maxaa dawladda waddanka Lebanon gacanteeda ku jira sababta ugu weyn wuxuu leeyahay waxa ugu horeeyana waa in Xisbullah hubka ka dhigta marka waxaas oo dhan wuu og yahay Netanyahu Xisbullah inaan hada dawladda waddanka Lebanon ay isku taagi karin marka ala inta waxa la leeyahay dhinac walba marka la eego xaaladda marba marka ka dambaysa in kastoo rajo wanaagsan lagu muujinayo dhinac marka laga eego oo la leeyahay
xaaladda way wanaagsanaan kartaa laakiin haddana dhinaca kale marka la eego walwalka ma yar oo dowladda waddanka Iiraan weli cara ayay markaas dhinacyada la eegaysa oo waxay leedahay waa maxay xabad joojintani dhibaatada duqeymaha Israa'iil iyo waxaan sii wada waa maxay marka ilaa ay bridge ma haddii xabad joojinay dhicweedo sabtidu waxay u badan tahay dowladda waddanka Iiraan markaas ciidankeeda ilaalada kacaanka geesiyaasha qarniga ayaa loo yaqaanaa in iyaguna markaas ay gantaalo roobta kaga dhigi doonaan ciidamada gumeysto waase huba mar dambe oo xeero iyo fadhaal ay kala dhaceen Israa'iil inay reer galbeedka Mareykanka ay u calaacala doonto marka taasina halkaas ay maraysa marka dhan walba oo la eega marka xaaladda ma wanaagsan oo marba marka ka dambayso waxba ka yaabiyo iyo culays iyo leesandadayo ayaad arkaysaa balse waxa la weeraraya maamulka gumeyso xataa inay si weyn isugu diyaarinayaan markaas in ay rabaan inay sameeyaan weerar kale inay ka geystaan magaalada Gaza ee markaas caasimada magaalada Gaza ee marka dhulka reer Falastiin dhinaca kale telefishinka Al Jazeera ayaa weeraraya ciidanka ilaalada kacaanka dowladda waddanka Iiraan inay gacanta ku dhigeen 12 qof ayaa la soo xiray waliba waxa laga soo xiray koonfur galbeed ee waddanka Iiraan dhammaantoodna waxay ahaayeen jawaasiis kuwaas oo doonayay Israa'iil iyo markaas Mareykanka inay u jaajusaan goobaha muhiimka ah ee dowladda waddanka marka Iiraan hadda ogow ya Iiraan waliba mukhaabaraadka dowladda waddanka Iiraan ayaa si weyn u bacsanaya kooxad mas'uuliyiin isugu jira iyo jawaasiis kale oo markaas iyaguna Israa'iil iyo Mareykanka u adeegay hadda 12 qof oo qaarkood waxa suurtagal ah inay mas'uuliyiin yihiin sida qaar ka mid ah warbaahintu ay warinayaan waxa aad ma santiin wararkan wixii ku soo kordhay waan idin la wadaagi doonaa haddii ay buweyna ka dhigo saaxiibada oo dib intaan u kulma doono nabadgelyo